bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee Nabad TV. Dowladda Mareykanka oo soo fargelisay xiisadda ka dhex oogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaare Khayre oo daafuray munaasabadda weyneynta xuska 60 sano guurada maalmaha xorriyadda iyo qaranka. Ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed oo soo bandhigay sahan lagu ogaanayo kaalinta gabdhaha ee warbaahinta oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. xildhibaan fiqi oo sheegay in sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya uu nin baxsad ah u gacan geliyay Al-Shabaab. Maamulka Xaaf oo jawaab ka bixiyay heshiis la sheegay inay la galeen madaxweynaha Galmudug Qoorqoor. Khayre oo sheegay in bangiga adduunka uu 45 milyan ugu deeqay Soomaaliya. Kenya oo ku guudisay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya sheegtayna inay u marayaan jadwalka midowga Afrika. wararka caalamkana waxa ugu waaweyn Ruushka iyo Turkiga oo heshiis xabad joojin ah gaaray. mar kale kulan wanaagsan daawadayaal waa Jimco 6 bisha Maarso 2020 warkii oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay daafuray munaasabadaha weyneynta daafurka xuska 60 sano guurada xorriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed oo lagu qabtay beerta qarannimada ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Khayre ayaa sheegay in qof kasta oo Soomaaliyeed laga doonayo inuu ka dhabeeyo himilooyinka halgamayaashii Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay xornimada dalka oo doonayay in dalka Soomaaliya uu ka mid noqdo dalalka ugu horeeyay ee dunida. munaasabada oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa ra'iisul wasaaraha sidoo kale ka sheegay in Soomaaliya ay soo cishan karto sharaftii ay dunida ku lahayd haddii dhammaan dadka Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan. Xasan Cali Khayre ayaa January 4, 2020 magacaabay guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda dalka oo shaqadoodu tahay inay qabanqaabiyaan xuska maalmaha xorriyadda ee 26 June iyo 1 July ee sanadkan 2020. xuska ayaa sanadkan kulansaday laba munaasabadood oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah sanad guurada 6aad iyo sanad guurada 20aad ee dib u aasaaska dowladnimada Soomaaliya oo lagu dhisay degmada Carta ee Jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee Djibouti. waa kan hadalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu ka jeediyay daafurka munaasabadda weyneynta xuska 60aad ee maalmaha xorriyadda iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed. xafladan oo ah daafurka 60 guurada qarannimada iyo xorriyadda Soomaaliyeed iyo astaanta midnimada oo ay qayb ka yihiin dadkan Soomaaliyeed ee hortiina taagan oo loogu talagalay maalmaha iyo bilaha soo socda inay qabtaan shaqo mug leh oo 60 sano kadib maalinta dhalashadeena la soo gaaro 26 June inaan dib ugu yeegleeri karno taariikhdii aan soo marnay tilmaamana ka bixin karno meesha dalku uu joogo iyo meesha aan u soconno. sababtu waxa ay tahay sida dhaqankeenu yahay waxaa la yiraahdaa sida wasiir Baylay baray 15 jir waxa la cunin 20 jirna hala baratamin 4 jirna hala legdamin 60 jirna hala garamin ama hala fadhi ku dirireen waayo uu ka gar helayaa haddaad 60 jir la garantay. su'aasha aan isweydiinayna waxa ay tahay waxaan jirsanay 60 waxaan soo gaarnay waqtigii aan la inala garami karin, waqtigii aan garta heli karnay, waqtigii macnaheedu uu ahaa in caqligeenu uu buuxsamay. waxaa la rabaa marka maadaama aan 60 jirsanayno inaan isweydiino 60kii sano la soo dhaafay maxaan dhisanay, maxaan dhiganay ama maxaan dhuminay. waxaa la rabaa 60kii sano la soo dhaafay inaan taariikhdeena dib u yegleelno oo aan niraahdo waqtiga taariikhdeenu ay ugu mudnay ugu muunad wanaagsanayd kulligeen aan dib u eegno
waqtiga isaga ah maxaan ahayn maantana xageenu joognaa waqtiga maxaa inoo hagaagsanaa maantana maxaa inaga hadlaysan wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in dowladda Mareykanka ay soo faragelisay xiisadda ka dhex oogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya si loo qaboojiyo. wargeyska ayaa sheegay in teleefankii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kula hadlay dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta si xiisadda loo dejiyo uu ku yimid cadaadis ka yimid dowladda Mareykanka maalin kadib markii Kenya ay Soomaaliya ku eedeysay inay ku soo duushay dhulkeeda kuna xadgudubtay madaxbannaanideeda ayaa qoraal ay soo saartay Villa Soomaaliya waxay ku sheegtay in madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru oo qadka teleefanka ku wada hadlay ay isla garteen ahmiyadda ay leedahay in si wadajir labada dal ay uga wada shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka. Daily Nation ayaa sheegay inuu ilo wareedyo lagu kalsoon yahay uu ka helay xog ah in teleefanka madaxweyne Farmaajo kula hadlay Uhuru uu yimid kaliya markii dowladda Mareykanka ay soo fargelisay xiisadda labada dal ka dhexoogan. xiisadda labada dal ayaa sii korortay kadib markii ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku dagaalameen beled xaawo ee xuduudda ku taala markaasi kadib oo ciidamada Jubbaland ay u carareen dhanka magaalada Mandheera. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee Soomaaliya Cusmaan Nuur Xaaji ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay inay dagaalka ka qayb galeen isla markaana ay madaafiic ku soo garaaceen magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada dowladdu ay geysay Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug oo Al-Shabaab u gacan geliyay nin baxsad ah oo dil ka geystay deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ee Ceelbuur. sarkaalkan ayaa amar uu ka helay maamulka Al-Shabaab ee deegaanadaasi ugu gacan geliyay ninkaasi sida uu shaaciyay xildhibaan Fiqi. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka gaabsaday inuu magacaabo sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in dhamaadkii sanadkii tagay 2019 uu Al-Shabaab u gacan geliyay ninkaasi oo dil ka geystay deegaanadooda kadibna u soo baxsaday Dhuusamareeb una sii gudbay dhinaca Cadaado. maamulka Al-Shabaab ee deegaanadaasi ayaa soo wacay sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada kuwaas oo ku amray in uu u soo gacan geliyo ninkaasi uguna keeno deegaanadooda ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. sida uu sheegay Fiqi sarkaalka oo fulinaya amarkaasi ayaa inta uu watay ciidamo soo qabtay ninkaasi kadibna ku soo qaaday gaarigii dowladda sidaasina uu ugu gacan geliyay Al-Shabaab ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda. xildhibaankaasi ayaa xusay in sarkaalkaasi uu dib u soo laabtay isagoo nabad qaba isla markaana aysan Al-Shabaab wax dhib ah u geysan markii uu ninka baxsadka ahaa ugu geeyay deegaanada ay iyaga maamulaan. ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed oo soo bandhigay sahan lagu ogaanayo kaalinta gabdhaha ee warbaahinta oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabad lagu soo bandhigay sahan lagu ogaanayo kaalinta gabdhaha ee warbaahinta Soomaaliya iyo doorkooda hogaamineed ayaa caawa lagu qabtay magaalada Muqdisho. ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyay loo yaqaan Somwim ayaa soo waday sahankan muddo ku siman 2 bilood waxa ayna ujeedkoodu ahayd inay ogaadaan qabashada shaqooyinka soo saarista iyo caqabadaha hortaagan in gabdhaha suxufiyiinta ay la mid noqdaan ragga tira ahaan iyo taya ahaanba. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Yuusuf Garaad Cumar, xogayaha guud ee Isutaga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fisoj Maxamed Ibraahim Mucallimow, agaasimayaal iyo marti sharaf kale. ugu horeyn gudoomiyaha ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed Farxiyo Maxamed Muraad oo munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in ururkan ay ku mideysan yihiin gabdho suxufiyiina isla markaana ururkan uu ka shaqeeyo xal u helidda caqabadaha haysta gabdhaha warbaahinta ku jira. marka hore waxaan rabaa inaan sharaxaad ka bixiyo waxa uu yahay Somwim maadaama dad badan oo halkan fadhiya iyo kuwa baraha bulshada nagala socda ay isweydiinayaan Somwim waxa uu yahay waxa uu ka shaqeeyo cid ku mideysan. Somwim waa urur markaas ay ku mideysan yihiin gabdho saxafiyiin Soomaaliyeed kuwaasi oo ka howlgala dhulka Soomaalida inta ugu badan. sidoo kale Somwim waxa markaasi uu ka shaqeeyaa wacyigelinta gabdhaha Soomaaliyeed ee saxafiyiinta ah soo bandhigida guulaha ay gaaraan gabdhaha saxafiyiinta ee Soomaaliyeed. sidoo kale Somwim waxa uu diiradda saaraa in markaasi uu qareemo dhammaan gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka.
Somin waxaa markaasi uusan ahayn urur faa'iido doon ah waxaana markaasi uu howlihiisa ku fuliyaa lacaga ama qarashaad ay iska ururiyaan gabdhaha ku mideysan Somin waxaana markaasi uu leeyahay sanduuq bilo ah kaasi oo markaasi gabdhaha ay ku ridaan bil walba lacagta ay markaasi ururka ku maalgelinayaan taasna waxaa cadeen u ah xafladda maanta aan fadhino ma jirto shirkad ama sidoo kale maalgeliyaan nagala qayb qaatay oo xafladan qarash ku bixiyay waxaana markaasi xafladan maanta ay ku dhacaysaa lacag laga soo bixiyay sanduuqa Somin sidoo kale Somin waxaa markaasi ka shaqeeya gabdho saxafiyiin ah oo magaalada ka shaqeeya gobolada dalka waxaana jira gabdho kale oo markaasi ururka ka tirsan oo sida maadaama dalka federal uu yahay dhammaan dowlad goboleedyada waxaa ka jira ururo markaasi gabdho ah oo isku tagay oo Somin ka tirsan kuwaasi oo si federal ah Somin uga tirsan xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inaysan jirin gabar xil weyn ka haysa warbaahinta Soomaalida isagoona sheegay inay muhiim tahay in xilalka sare ay wax ka qabtaan diraasooyin laga sameeyay wakaalada gaaraya ilaa iyo warbaahin kale oo 522 gaaraya ayaa waxay sheegayaan inay ragga 73% ka yihiin mas'uuliyiinta xilalka ugu sarsareeyahay laakiin dumarka aysan waxba ka ahayn hadda waxaan ka hadlaynaa ma ahan wariye war aqrinaayo ama waxa weeyaan war soo tawinaayo ama waxa weeyaan programmer am producer ah kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan maamulka dhisan oo go'aan qaadashada leh intay ka yihiin haweenkeena Soomaaliyeed tirakoob inay noo sameeysan tahay waa muhiim waxa laga yaabaa TV badan iyo warbaahinta guud ahaan kuwa la qoro kuwa muxuu ahaa la dhageysto iyo kuwa la daawada intaba haddaan isweydiino aan iraahno hal agaasimo sheeg ama hal maamule idaacadeed sheeg ama TV sheeg waxa laga yaabaa inaan hal dumar laga helin haddana maalin kasta waxaan u fadhinaa waxaan leenahay haweenka hala taageero marka waxaanan iswaafaqsaneen waxaan sheegayno afka aan ka sheegayno raggeenan oo ah inaan haweenka waxa way la taageero la dhiirigeliyo iyo inaan fursad la siinaynin tusaalahan wax kale marka laga soo tago xataa TV-ga qaranka ama wasaaradda warfaafinta ee dalka markaad fiiriso waxa laga yaabaa inaysan fursadahaas haynin oo muxuu ahaa iska badaa private-yada iska badaaba marka xoogaa waxa laga yaabaa inay iyaga laftirkooda wili ay risaalada iyaga laftirkoodii gaarin qofka risaalada markay isaga gaarto ayuu dadka gaarsiin karaa marka waxa weeyaan waxaa jiro challenge ah oo xagga dhaqaalaha ah waayo dadka warbaahinta furtay waa ganacsato siyaabaha doonaan iyo ujeedooyinkee doonaan waxa u furteen Senator Zamzam Daahir Maxamuud oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in golaha warbaahinta Soomaaliyeed ay yihiin 9 xubnood oo laba ka mid ah yihiin gabdho waxa ayna sheegtay inay ku dadaali doonaan inay intaasi ka sii bataan marka meediyaha markii la yiraahdo gabdhaha Soomaaliyeed anaga aad u muhiim noogu yahay gabdhaheenan hadeertaan isku xilqaamay ururka sameystay oo ku midoobayna waa kaalin muhiim ah maaragtay ay qabteen ay mudan yihiin in la garab istaago sharciga meediyaha hadda labada aqal ay baas gareeyeen inkastoo oo saxafiyiinta qaarkood ay ka cabanayaan haddana qodob muhiim ah gabdhaha Soomaaliyeed ugu jiro oo ah guddiga la sameeynayo waa inay 30% inay gabdho yihiin waa article qoran oo ku qoran sharciga waxaan u sheegaa marka dhowti markii guddigaas la sameeynayo inay ogaadaan inay sharciga saxaafadda ay akhriyaan gabdhaha Soomaaliyeed ayna u diyaarsadaan gabdhihii uga mid noqon lahaa guddigaas hadduu Ilaahay idmo Ambassador Yusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya ayaa ku bogaadiyay ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed shaqada ay hayaan talooyinka aan soo jeedinay gabdhaha waxa weeye waa dhowr in markuu ugu horreysay iska ilowdid inaad ku fakarto inaad gabar tahay markaad subaxii soo toosto gabarana hay meel xasuusisaa waa ma yeesoma qof bini aadam tahay waxaad baratay taqaana waxaad ka shaqaysaa hore u soco hore u talaabso macnaha gabara tahay iyo wal wiciilaya iyo wal reebaya iyo fursad ma helaysid hay xasuusin taa haddaad mar walba soo xasuuso ada isla haray taas lafteeda kula haraysa soo arag suxufi inaad tahay soo arag suxufi kaliya inaad tahay gabar adan ahayn suxufi gabar ama suxufi wiil ah minna ka fikirin xirfadaada saxaafadeed sare u qaad waxbaro gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab oo munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in wax lagu farxo ay tahay in la helo urur noocan oo kala ah iyadoona sheegtay inay garab taagan yihiin ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed
waxay la tahay waxa aan u imid inaan dhiirigeliyo gabdhahan iyo ujeedkoodana waxa aniga igaga muuqda bal inaan wax ka tilmaamo. waxaan xasuusanayaa anuu markaan dalka dib ugu soo laabtay gabdhaha Soomaaliyeed ee warbaahinta ku jira inta badan awoodsiinta ama gabdhaha inay siyaasadda ku soo biiraan gabdhuhuna ay dalka u adeegaan ayaan ka shaqaynaa. laakiin marka aad fiiriso in ay maaragtay gabdhaha ay wararka soo qaadaan xafiisyada qaarkood inay joogaan laakiin aan loo ogolayn aan u malaynayaa meelaha sare inay gabdhuhu ka gaaraan aysan fahamsanayn macnaha gabadha ay leedahay iyo mas-uuliyadda. marka waxaan jeclaan lahaa gabdhaha Soomaaliyeed kartidiina iyo dadaalkiina wada halka aad joogtaan maanta shalay midnaan joognin horay u socdaan rabaa inaan idin dhaho idinkuna dhiirigeliyo caqabad walba waxay leedahay xal looga gudbi karo. waa idinku tashanaysaa dhaqaalaha iyo waxaad u baahan tireed ka soo doonaysiin waan idin garab taaganahay gobol iyo tuulo meeshay doontaba ha joogteen annagu reerna waan u dhaxnay reerna waan ka dhalanay. weli waxaad daawanaysaan wararka Nabad TV markaana caalamka. dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa heshiis xabajoojin ah ka gaaray xiisadii ka taagnayd gobolka Idlib ee dalka Suuriya. heshiiska xabajoojinta oo dhaqangalkiisa uu bilaabmayay saqdi dhexe ee xalay heshiiska xabajoojinta oo dhaqangalkiisa uu bilaabmayay saqda dhexe ee xalay xilliga dalka Suuriya waxa uu ka dhaqangalayaa gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya ku yaala ee Idlib ee ay xasarada ka taagnayd. bishii la soo dhaafay ayay 36 askari oo Turki ah ku dileen weerar ay dowladda Suuriya ku soo qaaday Ruushka oo gacan ka siinayay. militariga Suuriya ayaa waxa ay dharbaaxo xoog leh kala kulmeen xoogaga dalka Turkiga waxa ayna ugu dambeyn ay xal ka gaareen in colaadda la joojiyo dowladaha Ruushka iyo Turkiga. xukuumadda Moscow ayaa waxa ay ku qancisay dowladda Turkiga sidii loo hakin lahaa weerarada Ankara ay ku hayso ciidamada dalka Suuriya ee jooga gobolka Idlib. daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Nabad TV. waad ku mahadsantihiin daawashada warka. haddii aad doonayso inaad la socoto warkii ugu dambeeyay ee caalamka, subscribe saar oo furo gambaleelka. nabadgelyo.